بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسو دوادا دمانتين ميل كستو جوجتين وحيدن لا يسو دوادا maanta waxaan noo wadaa meel badan aan ku maraynaa awina waa aadaynaa macmacaan qurux badan cunto qurux badan meel lagu diyaariyay na waa idin wadaa marka soo dhawaada idin leeyahay haddaan bixinaa magaalada u soconaa adeegan rabnaa inaan aadno waxaan saaranahay waa boodho cirkicta waa loo jeedaa allah nagu nabad yeelo waa ku qasbantahay inaan raacdid waatan ayadan ku soo adeegtay waa maalintii ugu horeysay adeeg aan ku soo qaato laakiin ani keligay waan soo raaci jiray waana sii raaci jiray markay ay danta ku qabato waa ku qasbantahay inaan raacdid magaalada jaamkeeda aad u badan yahay adeegi waa kana horta aan soo adeegay adeegan oo dhan waa lacag $15 macal baradhadii macal basashii macal maaragtay yaanyo adii wax ka maqan ilaahay abuurtay ma jirto ma sha Allah way dhan tahay waxa kale oo sii dheer xitaa liin macaanteena oo Soomaaliga ayadana waa tan kama marno ma sha Allah tabarakallah waa wadankan qudaartiisa iska raqiis biya dhamaadayna ma jirto abaara dhacday ma jirto xilli walba qudaartooda waa jaahis ayaga ma arkaysid qudaar la leeyahay biila'aan ku dhacday qudaar la leeyahay sanadkan abaara heshay waxaas dhan ma arkaysid cananaaskan asigoo oo maaragtay waa soo gadanaysaa oo lagu diyaarinaa bacdaada ku soo shubanaysaa gurigaaga keensanay ama fresh gasho ama cabitaan ka dhigo sida adiga jeceshahay birjaankan aad u fiican yahay ani kulli waa isticmaalaa sida bataata guduudka oo kale birjaanka oo kale liin macaanti waaye ma sha Allah tabarakallah Allah noo barakeeyo inta haysanina Allah siiyo marka adeega oo maaragtay adeegan aad 2 isbuuc ka badan kuma heen karo dadka haday dad badan yihiin laga yaaba isbuuc inay haystaan haday dad oo adeega dhexdhexaad yihiin 2 isbuuc way haysan karaan meeshan waa jidka ana waxaan jecelahay jidka inaan ka adeegto xitaa waa jecelahay marmar waa ka adeegtaa way dad masaakiin oo beerahooda maaragtay yarka ka soo gurteena jidka dhigto ayagana danay u tahay adeegana danay ku tahay marka ma sha Allah anaaska waa kana quruxdiisa u jeedin oo lagu diyaarinaa oo soo qaadanaysa suuqi weynaa waxaan ku dhex jiraa awino waan ku dhex jiraa qudaarta mar walba waxa fiican meesha ugu badan tahay inaad ka soo adeegatid marka soo adeeganaysa dadana awoodin waa goonideeda laakiin hadaa awoodo aniga waxaan jeclahay meesha ugu badan qudaarta taalo waayo wax alla waxa rabtid meesha ka helaysa oo niyadaada ku jiro hada meeshan waxa waaye waa cambihii canuunigii babaaygi ma sha Allah tabarakallah Allah u zaa'iliyaan dhihi lahaa waayo mar walba iska barwaaqaysan yihiin cidaan maba gaajoodaanba gaajo maba qabato waxaan ku dhahay mooskooda iyo digirtooda iyo bariiskooda iska cunaan qoriyana geedahay guranayaan dad ayagii abaar kala fog waaye dadkan faqri waaye laakiin dad gaajo haysa maahan waa dad dhulka wixii ka soo baxay aad u ixtiraamo ay ku nool yihiin waaye marka Allah noo xafido anagana Allah noo barakeeyo qof walbana siduu jecel yahay niyadiisa Allah uga dhigo oo khayr insha Allah waxaan soo gaarnay macmacaankii oo quruxda badnaa cuntadan u jeedid ma sha Allah waxa isku dardarsaday dad isjecel oo maaragtay ka fikiraya caruurtooda xilliyada oo maaragtay fasax ay leeyihiin xilliyada ay rabaan inay is arkaan ama ay nafisaan ma sha Allah markaas oo kale meel banaan ay tagayaan qof walba wuxuu awoodo soo sameeynaya macaan haday noqoto cunto haday noqoto qof walba wax alla wuxuu awoodo uu banaanka keenaya waa la wada nafisayaa dadkii maaragtay waa la wada cunteynaya oo waa la wada sheekeysanaya ilmihiina way nafisayaan waxa loo sameeynaya waxyaabo active oo ayagu ku farxaan cunto qurux badan ay cunayaan marka mar walba waxa idinku dhiiri gelinaya meel kasta aad joogtiin waa sameeysan kartaa hadaa Soomaali joogtid hadaa Yurub joogtid hadaa Afrika joogtid waa sameeysan kartaa waayo qof alla qofkii ku dhow oo jecel inuu maaragtay farxad raadiyo ilmihiisa farxad u raadiyo farxadda maqaayad kaliya ma taalo meel kasta lagu keeni karaa maqaayad kaliya ma taalo ina oo macnaha ilmaha kaxaysid maqaayad geysid
ama in maxaa la dhahay qarash kale kaa baxo maya saana samayn kartaa dad isfahansan hadday jiraan oo maaragtay oo isfahmi karo isla jaan qaadi karo maasha allah tabaaraka allah wax walba isla qabsan karaan adduunkan isfahan waaye marka waa idin salaamayaa meel kastoo joogtiin soo dhawaada meeshaana waxaa waaye waa iska kambaalo hadda aan idin duubaayo videoda oo cagaarka u jeedin waa kambaalo marka santar xaafadaydan ku jiray santarka korkiisaan ka duubayay waa meel aad u qurux badan ila daawada wax kastoo qurxoon insha Allah waxaan jeclahay inay ila daawatiin ama ila aragtiin marka waxaa idin rajaynayaa caafimaad cimri dheer meel kastoo aad joogtiin noloshiina hore u wata dib ha isku dhigina adigaas i daawanayo adaa awoodaas iskale oo noloshaada ku horumarin lahayd noloshana ku dibdhigi lahayd labadaba aday kaa go'daa marka aanay ahaan waxaan kugula talin lahaa noloshaada hore u wado dib ha isku dhigin meel alle meeshaa joogtid dib ha isku dhigin meeshaa joogtid ilaahay wuu kula joogaa oo waa tala saaranaysaa oo maxaa la dhahay wax kaa halaabayna ma jirto muhiimadda waxaa waaye inaa ilaahay ku xirnaatid ilaahay tala saaratid meel wadan alle wadankaa joogtid hore ugu socon kartaa ha isdhihin meel heblaha haddaan joogi lahaa waxaasaan qabsan lahaa wadan hebel haddaan aadi lahaa waxaasaan qabsan lahaa meel alle meeshaa joogtid ilaahay ku baridid haddaa kusoo jeesatid wax walba awood kasta waa yeelan kartaa meel kasta awood ku yeelan kartaa naftaada been ha u sheegin maxaa la dhahay been yay kuu sheegin wax qaldan yay kuu sheegin naftaada edbi ayada nafteeda inaa haddaa aragtid in maaragtay waxyaabo qalad kuu sheegayso ama meel qaldan kuu dirayso haddaa aragtid signaalkeeda soo celi xaleeda may taas ani uma qalmo taas wax fiican ma ahan waxa fiican aadba waa taqaanaa hore u socon ku dhihi lahaa meel kastoo aad joogtiin mar walbo waxaa inoo wada rajaynayaa guul horumar caafimaad insha allah aan isku duceyno inta xanuunsan allah caafiyo inta caafimaadka qabtana allah u zaa'idiyo ducada way iska fiican tahay qof lagu jira allah og aamiinta waa xaggiina marka ii soo dhawaada dhammaantiina waxaa idinka rajaynayaa inaan maaragtay aamiin noo dhahdin aan isku duceyno caafimaada noo wada rajaynaa dhammaanteena meel walbaan joogno insha allah allah nagu xafido annaga Soomaali haddaan nahay meel kasta waan ku wada dhibanahay marka dhibka allah naga wada qaado hooyooyinka siiba hooyooyinka culayska saaran dhibka saara allah ka wada qaado insha allah caafimaada noo wada rajaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu codkayga hadduu gaabta ka raali